maanta waxaan halkaan isugu nimi oo 31 December ay tahay maalintii ugu dambeysay 2024 inaanu bilowno oo daahfurno mashruuca dhireynta degmada Ayl xeebta degmada Ayl waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala arrintan noo fududeeyay waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan qaybaha kala duwan ee dawladda gacanta naga siiyay waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Amal Express Amal Bank Amal Real Estate iyo guud ahaan Amal Group oo gacan weyn ka geystay halkan waxaa lagu abuurayaa magaalada Ayl haddii la yiraahdo 200 oo geed oo loogu talagalay in dhirta in lagu qurxiyo bilicda magaalada xafladan maanta halkan bilowga ugu horeysa oo halkan maanta maaragtay in loo joogo waa dhirayn ama cagaarin xeebta degmada Ayl gaar ahaan xaafadda Baday oo runtii halkan ballanqaadkaas horay ay u sameysay shirkadda Amal maalintii halkan furitaankii dalxiiska September sanadkii hadda maartay aynu ku jirno ballanqaadkaas oo ay arkeen maalintaas dalxiiska in magaaladan ay tahay magaalo runtii dalxiis isla markaasna meelaha ugu badan oo loo dalxiis tagay xeebta tahay xeebtiina wax dhirayna aysan ka muuqan iyo cagaarin isla markaasna markaas degmada iyo wasaaradda warfaafinta oo wasiirku hormuud noogu ahaana markaas hawshaas maaragtay ay soo bandhigeen in degmadu ay u baahan tahay maaragtay cagaarin xeebteedu isla markaasna shirkaddu madashaas ay ka ballan qaaday in xeebta degmada Ayl ay cagaarinayso runtii shirkadda aad baan uga mahadcelinayaa maanta marka waa bilowgii oo ilaa 200 oo geed in xeebtan hadda maaragtay maanta bilowgii maaragtay aanu ka mudnay shaqadaasna guud ahaan la israacinayo oo maalmaha soo socota la dhameystirayo runtii sharaf iyo karaamay noo tahay madashan quruxda badan inaanu ka soo qayb galno oo aan maanta halkan degmada taariikhiga Ayl lagu dhireynayo runtii ka amal ahaanna mashruuci aanu ballan qaadnay in aanu maanta halkan ku gabagabeynayno oo dhagax dhigiisii iyo waliba geed beeristiiba aan maanta halkan ku yagleelayno runtii sharaf ay noo tahay gaara Amal waxay markaas u taagan tahay inay bulshada wax ku celiso runtiina si gaar ah noo ahayd maadaama degmadan tahay degmo taariikhiya oo gaar ahaanna dhinaca xeebtu ay tahay meesha lagu dalxiisayo inay noqoto meel cagaaran oo qurux badan oo indhaha u roon oo badiya cagaarka ay saaran yihiin runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa wafdigan culus oo nagala soo qayb galay madashan quruxda badan leh waana soo dhaweynaynaa ilaahay idankiis ballanqaadkii aan ballan qaadnay dhirtaas inaan ku beerayno degmada taariikhiga Ayl gaar ahaanna xeebta degmada Ayl saaka ayaanu halkan mashruuci ku daafurnay waana dhameystirnaa haddii alla yiraahdo insha Allah tacaala waana ka warqabaynaa dhirtan xaaladeeda iyo xawaasheeda meeshay waxay ku sugnaan doontaa haddii alla yiraahdo markale waxaan bogaadinayaa shaqada wanaagsan ee quruxda badan leh ee ay wada qabteen wasaaradda warfaafinta shirkadda Ilaahay inoo barakeeyay Amal iyo degmada Ayl oo ah iyo wasaaradda deegaanka oo ah shaqo runtii indhaha soo jiidanaysa magaaladan qadiimiga taariikhiga ka dhigaysa in indhaha adduunka iyo kan Soomaaliduba ay soo jiitaan oo halkan dalxiis loo yimaado markastoo magaalada soo qurux badan oo qadiimi ah oo bulshada inta la ku nooshahay bilicda qayb laga qaato waxay qayb ka qaadan doontaa ganacsiga iyo dhaqaalaha in kor u kaco waxay qayb ka qaadan doontaa kobaca bulshada deegaanka ah iyo dadka degan iyo inta kale oo ka shaqeysato amba kalluumaysi u imaanaysa amba si kale u maalgashanaysa dalka marka waa mahadsan yihiin dhamaantii ka shaqeysay shirkadda Amal oo halkan waxa weeye ka qabanaysa ballanqaadkii ay sameysay hadda ka hor oo ah in 200 oo geed oo isugu jira geedka timirta ah iyo geedka qumbaha ah halkan waxa weeye xeebta degmada Ayl gaar ahaan dhanka Baday waxa weeye aan ku daafurnay waxaan uga mahadcelinayaa marka koowaad iyo mar labaadba shirkadda Amal shirkadaha kale way ka duwan tahay waxay uga duwan tahay hadda ka horna waan ku amaanay waxay uga duwan tahay waxay qayb ka qaadataa cagaarinta magaalooyinka iyo degmooyinka waa wax shirkadaha kale ay kaga duwan tahay oo mudan in lagu bogaadiyo oo lagu amaano shirkadaha kale oo waxa weeye xoog weyn waxaan ka rajaynaynaa in isaas oo kale iyaguna waxa weeye sida shirkadda Amal oo kale qayb waxa weeye uga qaataan cagaarinta magaalooyinka iyo degmooyinka shirkadda Amal oo mar walba arrimaha bulshada dhinac kasta ha ahaatee garab taagan waan uga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan ku sii dhiirigeliyo inay sidaas markasta arrimaha horumarinta iyo developmentiga wax weyn ka taraya inay qayb ka ahaadaan barnaamijkan si gaar ah uga mahadcelinaynaa
gudoomiyaha iyo guud ahaan golaha deegaanka iyo dadka reer Eyl degmada Eyl intii la yiri u dhaafi maayo waana ku mahadsantihiin magaaladan sidii loo xusay weeye waa magaalo halbowle ah dadkaana qiimo badan ugu fadhida shirkadda Amal oo si gaar ah ugu hambalyeeyo oo 27 September bandhigii dalxiiska markaanu Eyl ku qabanay iyagoon wata tashi gelin boardkii ogeysiin maartay maamulkii shirkadda ogeysiin halwadeenadii halka ka joogay go'aan ku qaateen inay magaaladan bilicdeeda wax ku soo kordhiyeen oo 300 oo geed ku ballan qaaday fadhigi iyadoo la fadhiyo mikrofoonka ay haystaan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa ilaahay waxaan uga baryayaa asaasayaashii shirkadda inta dhimatay in ilaahay u naxariisto ubadkoodiina sadaqada ay geysanayaan ilaahay ku badbaadiyo inta joogtana cimriga Allah u dheereeyo shirkaddana maalkeeda Allah u barakeeyo meeyar iyo xogaye iyo golaha deegaanka iyo gudoomiyaasha xaafadaba dhirtu waxay ka mid tahay hantida dalka ka mid tahay hantidaas gacantiina la soo geliyay ilaalin iyo xanaana idinka rabtaa wasiiradana waa uga mahadcelinayaa wadada dheer ay soo mareen inay goobjoog naga noqdaan oo nala arkaan mashruucaas wadajirka ah oo maartay shirkadda Amal iyo wasaaraddu ay ka soo shaqeeyeen wasaaradda badlawadaagta lahaana kala goobjoog yihiin wixii xanaano dambe ay u baahan yihiin inay halka ka sii wadaan mashruuca wasaaradda deegaanku sii ballaadhiso dhir inta ka badan raadiso maartay aragti ku soo kordhiso meesha wax marayaan markay aragtay goobjoogii koowaad ay maanta ka yihiin aad iyo aad baan maartay uga mahadcelinayaa